السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa nagala socontaan waa Ridwaan arka fadlan haddii aad kasoo codsan tahay channelka waxaan kaa codsanaa inaad subscribe-ta like-ta dad video ka hesho weyaan. haddii aad video ka heshona commentiga inta saa tiraa hoosta saarna kusoo dhig si aan commentiga intaan u akhrino aan waxaad u baahantay aan kuu qanino. maanta haddaba maxaan wadnaa qoraalka kale waad soo akhriday. haddaan qoraalka soo akhriyin imika akhri maxaad iga eegaysaa maana koran qoraalka horta bal qoraalka akhri. okay qoraalka waxaa ku qoran qof indhadig baa tima akhrinaysa. qoraalka waxaa ku qoran Sindi Saacid oo call aan kusoo qabanay. Sindi Saacid waxaa jirto channelkayga hal mar bay soo fadhiisatay ay ila joogtay Somaliland. hadda waxay qabatay Garowe qabatay ma xumee. waxaa jirto videogii hore aan ka qabtay waxaan kusoo qoray Sundus oo sheegtay jacaylkeedii ugu horeeyay. Sundus waxaa sheegtay jacaylkeedii ugu horeeyay laakiin ma sheegin ka hadda. dadku waxay u haysteen inaan erayn Sundus oo sheegtay jacaylkeedii imika iyo ugu horeeyay kala saaranaya ma dorto waalintiina. waxaa jirto su'aalo badan oo laga soo weydiiyay la oranayo Sundus meesha jacaylkeedii ba sheegtay qofkii videoga dhameystay waxay sheegtay keedii ugu horeeyay. waxay sheegtay dibkii ka soo maray videoga inta dib u dhaqato caadi daawanaya la ka fahmi doona xolbe imika way ku jirtaa khadka mar dhaweyd markaa weyn soo qaban doona. alamad maad heesta si gaar igu soo duubta youtube-kan hordhac ka dhigan lahaa markay soo gelayso dhag Sundus waxaan ka jeclaan lahaa maanta adigoo ila fadhiya oo asxaabta hor fadhiya balse maanta call baa kuga soo qabtay. waxaan ka jeclaan lahaa maanta adigoo ila fadhiya channelka caadi ila fadhiyo igala ag muuqda laakiin waxaan ka xumahay inaan call ku soo qabto. may insha Allah mar kale way dhici doontaa inaan mar aan caadi saa uga soo fariisto sidii hore caadada noo ahay. ay asxaabta ku soo dhawo maxaa la odhanayaa asxaabta in kulli kuma arkayaan callka bal codka gaarsii si noo asxaabta waan salaamayaa inay maqlayaanna waan u malaynayaa korna waa u qeylinayaa xaafadu way iga yaaban yihiin. waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin insha Allah barnaamijyo xiiso leh waa idin soo wadnaa. aad rabadaanta waxaan ku kaga baxdaan waa la idin soo wadaa YouTube-ka Ridwaan arka. haddana si fiican baad maqlaysaan baa u malaynaya maxaa maanta la ii wadaa Sindi kolay waxaad maalmo dhaweyd waxaad joogtay Hargeysa. kolay waxaa jirto markii koowaad aad timi maaha qofku markuu muddo ka maqnaado meel uu ku noqdo wajiyo cusub ha noqoto ama dad cusub ha noqoto ama cusub ha noqotay wax uu la kulmaya wixii kugu farxadda badnaa amba intaad joogtay aad Garowe markaad tagtay aad ku xasuusatay maxay tahay? horta waxyaalo badan oo farxad geliya way jiraan laakiin wixii iigu farxadda badnaa wuxuu ahaa maalinta arkay libaax. oo libaax ma Garowe joogay aan saa u arkay caadi isagoo wax cunaya isagoo waxaan ku qaylinaya isagoo yeli laawaya bade bal Sundus libaax soo aragtay libaax waliba mid kaliya ma dadka video moodi doonaan libaax iyo shabeel baa soo arkay toddoba libaax baa soo arka maalintaas aanan ilaawin Hargeysa waxba waxaan ku ilaawin waxa kamid ah libaaxyada aan soo arkay. libaaxyadaas kugu weyna de maalinta libaax wala wax fudud baa fudud loo arkaa way adag tahay markuu ku arkay cuntaan ba inuu cunana waa lagu fikiraa moogtaa oo dadku waxa laga moodaa waxa la oran jiray inaad taawatay sanka libaax ee la oran jiray malaha Garowe inaad agsi xataa la moodi jiray. anigu dad asxaabta lama sheegi karo laakiin anigu warniyo horta Garowe libaax lagama helo kowde maxaa ku dhacay Garowe gaalkacyo libaax kuma soo
waa dhawaado dadku Wad indhaadagtina oo dilaysaan. asagana wax ka raagsadaan buu ka baqaa Ay. marka libaax kama soo ag dhawaado garowiya kaalkaay hadda maalinta dhawada dhan Murabos qofta la yiraahdo sheekeer baan kaaga sheekeynayaa Murabos baa waxay samaysay baan beerta libaaxa u kaxayna deedsana libaax markay artay bilad alla ilaahay oo rabbiyo ma guursada libaaxa ay tir waxa la oranaa naagta kaliya libaax guursada waaba ku faani la ama ma ii cuno iska leexdahay cuni kulaha sharaf ay tahay inuu cuno Ay. Ma tiideysaan. waxaan wariga libaax akid Irguusada iyo cuno wixii isku darta. ya bixi isku darta taaganta ma ii cuno sharaf ay allah Inaad tiideysaa beedaa cuna. war maalinta qofna lagu xisaabtamay Sundsay. Waxaa jirto ma xasuusataa video horaan ka duubtay aan ku soo qoray Sunds oo sheegtay jacaylkeedii ugu horeeyay. al masaasa ku qortay Saasaan ku qoray koodhay. Deena wadii ka sheekay jacaylkii ugu horeeyay wax ka soo maray. wixii ka soo maray waa la xasuustaa warqadii haddaba bal dadkan aad ka shakisaar waxay moodayeen commentiga haddaad dib u eegto wadna xasay wax weeyaan meeyada sheegtay waa jacaylkeedii meeyada sanba waxay moodayeen inaad jacaylkaaga ugu dambeeyay sheegtay jacaylkayga ugu dambeeyay u sheegi mayay laakiin jacaylkayga hore mid xasuusigu leh buu ahaa yaraanteedii ku dhacay haade marka wax yaraantaadii kugu dhacay ma malaynay hore kaaga dhacay jacaylka qarna iyo soo dhacay dadkan hadda waxaan sheegayaan Sunds saacadno taad arkaan aan kolaabay nagala hadlaysaa muhiimadu inay ahayd in jacaylkeedii wareeyna ka shakisay laakiin aanu hayn kii dambe aan sahayn kii dambe waagu ilaahaya ma garad waagaas ma laga sheekanay waagi ma garanaysaa de kan wakaan la socday oo markay dhaafto waa markii wixii la rabay iyo meeshii la isla rabay la isla gaaro kolay Sunds asxaabtu wax isweydiinayaan wati dad badan hargeysa ku lahayd haday rag noqoto haday inama noqoto maxaa xaflad lagu dhigi waayay maxaa surprise lagu dhigi waayay waxaan doonayaa dadkii deynaan ka shaki saaro horta wixii jiray horta niyo surprise wala iska sheegay marka xafladeeda Sunds saacid channelkeeda kala socon doontaan hadda aragtaane waxa jirto in xafladii markaan hagaajinay cilad computerka ku soo baxday oo computerka ka xumaaday maanta anaadu soo hagaajinay oo niga de Sundsnayo wana imika u sheegay saa imikaan call-ka ugu sheegay surprise kan hadana xafladeedu sheegay inay deed aan computerka soo hagaajinay ayaan iyaduna ogay asxaabtuna u warogaateen Sundsay dadku way yaabayeen oo sheegay xafladaasna way ka arkeen TikTok badana aad loo soo dhigay asxaabta qayb ka mid soo dhigaysa TikTok waxa weeyaan horta video yar oo mawla lagu duubay laakiin xafladii sideedii la duubay insha Allah berito hore basaad dambe channelka Sunds saacad kala socda Sunds maxaa leedahay asxaabtu markaa maxaad kaga tagay asxaabta waxaan leeyahay horta sharafta leedihiin Allah ha idin sharfo de wixii inta ka dhimanna ninka laga soo hagaago meesha la rabnay uu ku dhow yahay waxaan ku horeeyay idinkuna waa mid idin ka baahan yahay isla socod wanaagsan muuqaalka ka sii badan aan masaawada daadihayno insha Allah waxyaalaha commentiga noogu soo qortaan hadaan ka fiir qaadan ayaan asxaabta maraysan Sunds waxa kamid tahay dadka aadka loo jecel yahay channelkiga laga jecel yahay waayo commentiyada markaad eegto soo qabo noocan sidan waxa maanta aan videoga u tusi waayay waxaan waa codkaaga isku leeyahay inuu baahan yahay bade codkaaga ku filan ba hayada maynan maalin walba ku guulaada doonaysaa iga video maanta ma duubi karee way waxaan ka jecelahay insha Allah inaynu mar dambe live ahaan video channelkayga soo war fadhiisano iyo video call ba kala adu garaway mooniyaan hargeysa kuma soo noqonaye waayo garawna ku timaada ilaa asxaabtayda hargeysa say ugu haysay ay garaway yimaadaan anu hargeysa ma imanay ta dhageysade anu qorshaan ku socdaan ku sheego 7 xagan joogaya 7 cisho khaliyaata Nairobi baan tagay Nairobi baan hadana Soomaaliya ka soo horeynaya ka bacdi garaway calaleheeda inaad 7 cisho joogtid iyo in kale waa kala ogaan doonaa
garowe 7 ma joogayo hee bartan ka baxaya 7 magaalada joogay baan kula xakan hargeyso waxaan tagay Nairobi niyada dagaal hoosaad baan igula jirtaaye hay horta dhageyso waxa la yidhi maada maqal Soomaalida waxa la been way shaqtay laakiin beel kuma maado hore u cunay dib u qatana ma la oran ya hore u cunay baa dib u qatana soo ma hadda ha waxaan hubaa garowe ilan aday joogay safiir dhanbay fadhiyo madaxweyne dhan alla ina sidii adduunka lagu soo dhaweynay waxaan kula kama sheekeen kare daba qof soo dhaweynta ka cararaya waligi lama arkin de horta dhageyso ka carray lama arag de meeka ma carray dhageyso waxaan isla imika marka aad tagto garowe sidii adduunka lagu soo dhaweeyay waan garanayaa si soo dhaweynteeda laga sheekay maayo lana ciri dhul bas lagu mariyo ood ka tagta ka horan ilaahay baan ku dhaariyay macaan ku dambeey baan isla yaano ma yada ay video ku sheegay niyo hadda dad badan garowe jeclaysiinay baa jirta kowde waa kow ay kamid tahay Salmale Jeclay iyo Amaar iyo Dayax iyo Maxamed Cali iyo Saamiye Barwaaqo iyo tiim ku dambeeyay nooga yimaadeen oo injineer Hudhud iyo ninka la yiraahdo Cawal Bilin kastaan markaa Hargeysa ku maqnaa Yasmin waxa ku hore waxa soo dhan hadda wanaga garowe soo jeclaysiinay oo garowe waxa ku hore waxa u tahay jannadii adduunka astaghfirullah hay marka waxaan rabnaa in aad tireedin baa Nairobi ka shaqeynaysaa ma xaga uga socda garowe iyo guriga soo kireeya dalmo san doonayba sonin kula intaan halka soo maro oo bana garowe ku nagaanaya way dadkana garanay imkaan xaqin la joogaano xiisa ka haya waa maqlaysaan asxaabe wuxuu yiri waa maqlaysaan hadhow inta isbedela waxa la oran doonaa sunti maxay u xanaaqay caadi xanaaqaagu waa shamir roon garanaya ka salaamayaani hay sheegi dadka hay soo qaban doona hay landere asxaabta qaaliga waxaan iga codsanahay fadlan hadday tahay markii kugu horeysay ee aad channelka aad kusoo biirtay fadlan inaad subscribe-ta noo saarto iyo horta ummadda Soomaalida mid baan u sheegaya inuu adu Soomaali baad wada daawanaysaa soo ma bal ilaahay baan ku dheer waxaad sheegtaa calaamadda yar ee meesha subscribe ku qorantay ya haddii aad taabato wad videoga si sharaf leh like to saartay maxay ka dhimaysaa haddii isku jinsi bayna isku Soomaali bayna marka waxaad samaysan asxaabtay keligay ma wali ummadda Soomaaliyeed oo dhan anigu wallahi been sheegmay YouTube-kiga markaan galo fiidiyoada badan aan iska daawada kuwiga ma wada waxaan daawada fiidiyoada dadka kale way waxba iga dhimaysan fiidiyooga daawado inaan qofka talentigiisa eego iyo inaan subscribe saaro marka bal adiga Soomaaliya adaa dadiixiga adoo dad caawin waadod oran waadan iyo hore u saxta comment inta ku soo qori waado maxaa faa'iida yaan wax ka raadiyaa ma inay raacdo gaal wax ka dadaya waxaan ilaahay YouTube Soomaalida qof walba markaad aragto inuu talent leeyahay inuu dad soo hor fadhiisanayo inuu YouTube furtay inaad subscribe waxba ka kaligeeba ma Soomaali haduu ka soo horbaxo inta tarto waxba daawan u dhaaf dhiirigelinta saagu waxa laga yaabaa maalinta ilaa 100,000 ilaa 100 qof adoo subscribe marka like iyo subscribe saarto inuu inta dhiirani ka si qaadaba fiidiyoda aanu eegin la daawanay oo arko subscribe-tiisa socoto marka asxaabta qaaliga waxaan leenahay hadday tahay markii kugu horeysay subscribe-ta haddii aad fiidiyo ka heshay like-ta fiidiyoga waxaad kaga heshay waxaad ku diiday intaba comment-ka nagu soo qor sindis dad badan waxa jiray oo yiri soo qabo oo nagu soo celi kolay maanta iyaduna sikadiisa aanu qaraacnay waan jeclaa inaan fiidiyo call ku warhadlo iyaduna ay halkeeda ka soo duubtaan xaaqan ka duubo leedo tolo isku hagaajino laakiin meel kamera taaliye meel wax saasan joogin hawla iyada shaqo ku maqnaydiduna marka almuhiim wuxuu waqtigu noo saamaxay inaan call kula hadalno arsindus yar kale inta ka badan baa inii soo qabanaya anigu qofkan salaadaha asxaabtaadu way ka heshay ayaan soo qabanaya idinka noqotay idikuna ilaa idinka inii maqanay bal haddii comment inaga way subscribe inaga way like inaga way koran mana ayaan darayn ilaa adaan ku maqnaa imikii daawanayo fiidiyoga daawanaye waqtiga iskaga luminayo iyo waqti aan aad ila qaadanaysa wana dhibaato in subscribe taad igala baqasho Soomaali maxamed waxaan iga tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi khayr bin isku ognaynaa imika nadaafnaa kamarta jar maxamed iga soo xaarutu waxaan iyaga